ma dhab inay Ekraan Osil dishay Rasmi Reis ma dhabbaase inay hees isku qabsadeen labada fanaan dabada ay sidaas ku gacan saareen ma doonaysaa xaqiiqada dhabta ah haddaba muuqaalkan dhammaystiro si aad u hesho xaqiiqada dhabta ah kulanti wanaagsan daawadayaal halkan wararka TV oo alaaba kala socotaan wararka warbixinooyinka iyo waxyaabaha dunida dacaladeeda ka dhacaya daawadayaal ku soo dhawaada bandhigga rugta TV haddii channelka aad ku cusub tihiin ay tahay boqoshadii koobaad waxaan si xushmadleed ka codsanaynaa fadlan subscribe saara videogana like saara muuqaalkana si share garay oo la wadaaga asxaabtiina waxa waayidii ugu dambeysay lagu qaada dhigaya xagga Snapchat dada Instagramada iyo social media qaybihiisa kaleba fanaanada Rasmi Reis oo la leeyahay waxa dishay fanaaniin ka tirsan fanaaniinta magaalada ku nool Kenya waxa dad badan soo bandhigayaan inay Rasmi Reis dishay fanaaniin ka tirsan fanaaniinta Kenya ku dhaqan balse daawadayaal warkaas iyo warar badan oo social media ku jira inaanu cadayn ayaa suurtagal walow ay dhalinyar badan halkan soo dhigaysay Rasmi Reis ayaa lagu tiriyaa dadka haatan imika fanka ka fadhiistay ee aadka dadka ugu qosliyay YouTube-leedana ah runtii muuqaalkiisa markaan daawaday ilaa bilow ilaa dhamaad programkan marka aad daawato ayaad oran kartaa waxba ka jira runtii dad badan YouTube-leeyahay way soo dhigayeen iyadoo ay markaa u falanqeynayaan hadba qof si ay u falanqeynayo balse xaqiiqadu waxay tahay iyadoo inay afkeeda furatay oo ay tiri wax igu dhacay ma jirto waxaan ku siibtay guriga kadib dhulka ayaan ka dhuftay nabarkana sidaas ayuu igu soo gaaray dad badan way xaqiiqsadeen hadalka ay tiri dad badan wali xaatalan ma xaqiiqsanin balse daawadayaal khaladka ilahayd ayaa ahaa inay Snapchat ka soo dhigtay fiidiyowga iyadoo aanay waxba ku soo dul qorin ama aanay waxba odhanin xaqiiqadu waxay tahay gabadhan waxay la saaxiib tahay fanaaniinta ka tirsan fanaaniinta Nairobi oo dhan andhaho fanaaniin caan ah iyo fanaaniin iska yaryarba daawadayaal gabadhan ayaa ah marka hore fanaanad balse haatan inay fanki ka fadhiisatay aanay shaacinin ay si hadana soo dhigto riwaayado iyo waxyaabo saas imika ay u bedelatay fankeedii iyo wixeedii dad badan waxay qaada dhigayaan fanaanada Rasmi Reis iyo dilkeeda iyadoo ay kolbo qof dhakada ka saarayaan kole idlayara ay yiraahdaan kole ay yiraahdaan Ekraan Osil kole ay yiraahdaan qof kale kole ay yiraahdaan waa kan kole ay yiraahdo waxa aan xalay muuqaal ku daawanayay oo soo dhigay Cawl Official channelkiisa yar Cabdirasaaq oo ka hadlayay mowduuca programka isaguna oo marka hore YouTube ka keenay waxa uu oranayay fanaanadu oo maato kuma siiban hadii ay ku siibatay runtii kuma dhufateen isha laakiinse ishu leen waa meel gooniye meel balse runtii waxay tahay gabadhan in aan la dilin ayaan oran karnaa iyadoo markay afkeeda ka qiranayso maxaa yeelay qof la dilay Snapchat intuu iska soo duubo runtii muu soo dhigeen mowduuca barteeda Instagram-ka fanaanadan ayaa ah fanaanad haatan imika ka fadhiisata fanka iyadoo aynay cadaysanin inay ka fadhiisata fanka balse haatan qoslisa ah leh YouTube riwaayadaha soo galisa runtii channel aad iyo aad u kala kacsan oo aad u weyn leh balse daawadayaal waxa aan oran karnaa xaqiiqadu in la baalmaray oo aan aniga sidaan waxba leegu sheegin si kale wax leegu sheegay waxa aniga la soo cadeeyay oo leega soo cadeeyay magaalada Nairobi inaanay isdilin qof fanaanada ama qof kale aan isku dhicin balse ay samaysay inay siibatay ama gidaar baal ay ku dhufatay deeto ay halka nabarku ka soo gaaray ayaa la soo cadeeyay wiilal badan oo aan la hadlay ayaa xaqiiqada ay sheegay xataa qaar ay isku dhow yihiin oo ay jaarban yihiin ama xaafado deris wadaag ay yihiin ay runta ay soo sheegeen balse daawadayaal mar walba waxa dhibaato inaad qof makhluuq ilaahay abuurtay personal attack ku sameeyso ayaa aad iyo aad u xun waati daawadayaal waxaan jeclaysan lahaa aanan halka Rasmi Reis kaga baxo arrinkeeda aan galo Ekraan Osil iyo Rasmi Reis maxaa ka dhaxay okay Rasmi Reis Ekraan Osil mowduucooda aynu galayadana Ekraan Osil waxa lagu tiriyaa dadka ka qosliya balse fanaaniinta iskaga dhex jira aan si laakiin lahayn heesa u qarxay balse dadka magaca social media aadka ugu leh waxa waayidii la soo dhaafay ilaa 3 bilood 4 bilood ka hor ay soo saareen iyada iyo Munir Anqa hees ay wada qaadayeen oo talantaal ahayd iyadoo ay heesta muuqaalkeeda waqti hore la duubay haddana sheekada waxa lagu soo daray Ekraan Osil iyo Rasmi Reis ayaa isku dagaalay ayaa leeyahay hees kadib nabarka sidaas ayaa lagu gaarsiiyay okay ma xuma balse daawadayaal waad ogsoonaydeen waxaad dhex gali kartaan channelka Munir waxaad eegaysaan waqtiga heesta la duubay iyo waqtiga la dhameeyay heestu waa completed waqtiyo badan ba completed bay ahayd balse waxa la sugayay sanadka cusub 2020 bishiisa koobaad ayaa la soo galay sidaan ilo wareed helayno
waad ku mahadsantahay daawada daawashada nala wadaagtay ee aad ka quruxda badan ilaa iyo inta muuqaalka la soo socotay daawadayaal mar walba waxaan naga xasuusinaa haddii channelka Rugta TV aad ku cusub tihiin fadlan subscribe saartaan videogana like saartaan muuqaalkana si share gareysaan oo la wadaagtaan asxaabtiina waad daawadayaal muuqaalka inta sar ku soo koobi doonaa waad si yar next video insha Allah taala iyo muuqaalka noo xiga aad baan idin salaaminaa meel oo joogtaan ha ka hilmaamin subscribe ta channelka